Salaamu calaykum saaxiibayaal, waa maalin cusub, saacad cusub, fiyo cusub iyo qayb cusub. Waxaa maanta bilaabaynaa buug cusub oo magaciisu yahay Digniin. Waxaa qoray Liibaan, waxa uuna si toos ah ula hadlayaa dhalinyarada, waxa uuna kala hadlayaa caadada foosho xun ee dhalinyaradii baratay. Anna buuga dhaamadkiis waxaa ku dari doonaa talooyin haddii uu qofku sameeyo uusan dib dambe ugu laabananay, waana kaa hubaa arrinkaas. Halkani waa hoyga buugaagta taxanaha ee nooc walba leh. Fadlan waxa aan kaa codsanayaa in aad channelka subscribe garayso. Halkan waxaa joogto ugu soo gudbinaa buugaaga xiriir ah oo aan halbogna laga boodayn. Dadka qaar waxa ay dhageystaan soo koobida buugta, laakiin malaha wax faa'iido ah. Buug la soo koobay buuga aad halkan ka dhageysatay waxa ugu xisaabtamaysaa in aad akhrisay oo kale marka joogtayso barteena YouTube ee Ogaalside. Ma og tahay in buug la duubo oo la dhagaysto in caalamka lacag lagu kala iibsado? Adna waxaa u dhegsanaysaa si firi ah. Marka fadlan muuqaalka ii shargaree. Mahadsanid. Marka fadlan si wacan u dhagayso buuga, waxaana ku bilaabaynaa sidan. Ogeysiis horta, ma ogtaha qofka buugta akhriya ama dhagaysta waxaa kordhaya garaadkiisa, waxa uuna noqonayaa qof aad u kalsooni badan oo ka sarreeya dadka uu la nool yahay. Marka daawade waxaa kuu rajaynayaa in aad nugaysiiso qoto qof garaad badan. Taariikhaha adduunka la socda buugaagta halkan kala socda iyaga oo dhammaystiran. Ogowna haddii aad isku qancinaysi waxaan waa application, codkiisa lama dhagaysan karo, waa mid adig ku taal. Anigu waxa u dhididayaa dadka faa'iidada raba oo raba in ay wacyigood dhisaan. 40 daqiiqo oo ay 10 bog ku akhrin lahayd kuugu bedelo 10 daqiiqo oo dhegaysiga iyo 15 bog oo hal mar ah. Ujeeddada buuga. Buugan waxaan u qoray markaan arkay dhalinyaro badan oo ka cabanaysa caadooyin kala duwan, sida ragga qaar in ay gacantooda ka raadshaan raaxo, yacni siigada. Kama gaban doono xaqiiqada inta uu wada buugan. Dadka qaar way ka gabadaan ayagoo streen siinayo waxaani inay tahay keliya ceeb. Waxaad ka soo qaada anigoo oo kula fadhiyo kadibna ku leh iska daa caadadan xun oo mustaqbalka naftaada wax yeeleen karta. Buugaan ma dhagaysan kartid haddii aad 15 ka yar tahay. Waxaa loogu talaga qofkii ka weyn 15. Mahadsanidin. Caadada xun. Waa maxay caada xun ama siigada? Dhibaato miyay leedahay? Sideed iska joojin kartaa? Waa maxay caadadan? Caadadan waa arrin ay dhalinyarada sameeyaan in aad tagto meel aysan dad kale joogin, yacni keliga aad tahay, kadibna aad sawirato in ay kula joogto naag qayaali ah amaanan jirin, kadibna aad gacantaada raaxo ka raadiso. Caadadan kuuma ogolaanayso in aad noqoto waxa aad mustaqbalka rajaynayso. Kuu ogolaanayso in aad noqoto nin rag ah oo dhammaystiran. kuuma ogolaanayso in aad noqoto aabe ican ama sawj ican. Waxay kaa qaadaysaa karaamadaada. Waxay ku dheelaysaa hamigaagii iyo hadda-aagii hadhowna. Waxaad noqonaysaa mid shalaytana ma horaysee wey. Dambaysaa raali ma ka tahay in aad xabsigaas madow ku jirto? Kadib marka aad caadadan samayso waxaad go'aan ku gaaraysaa in aadan mar dambe u laaban doonin. Wakhti yar kadib waxaad arkaysaa adigoo dhex fadhiya oo dhex dabaalanaya caadadii xumeed. Dhibaatada ay leedahay caadadan. Waxaad noqonaysaa mid maad ahaan u liita, cimri ahaana si dhaqsi ah u dhammanaya. In aad dareento caajis xilliga salaada, in aad noqoto caasi waalidiin alle iyo nebigiis ka furtay. waxaad noqonaysaa xitaa mid nafsad ahaan u dhintay, yacni in aad ado nool dilanto. xitaa waxaad weynaysaa dabeecad aad kula joogto asxaabtaada. Xakamaynta naftaada waa dareen weyn oo aanan u dhigmin dareen kale. Caadadan inay ku saamaysay waxaad ku ogaanaysaa in aad dareento xanuuno fara badan, sida in aad jilbaha xanuunka dareento, dhabarka kala gooskiisa in aad ka dareento. Xitaa naftaadu waxay la qabsanaysaa in ay mar kasta muuqaaladaas xunxun daawato oo ay ka dhigato wax caadiyan adiga ku ican. Sidoo kale waxaad isku arkaysaa walwal guud ahaaneed, dabeecad xumo, dhafar joogto ah, in aad mar kasta tahay mid maqane jooge ah. Nasiib xumo sanadkan waxa ay aantas xunxun daawado ilmo
hal sano jir ah iyo kuwa ka sii yar, waxaana sababay in ay waalidka u dhiibaan mobeelada ama ay ku iloowaan. Sideed u joojin kartaa caadadan? Markii ay kugu soo dhacdo caadadan si aad u irsato jirar ay leeyihiin dumarka kuwooda raqiiska ah, ka istaag meesha aad joogto. Haddii aad qol ku jirto, keligaa ka bax oo tag bannaanka iyo meelaha ay dadka joogaan si ay maskaxdaada uga baxdo oo aad u ilowdo caadadaas xun. Taasi waa go'aan adag oo idiin dhexeeyo adiga iyo naftaada ka hor inta aadan joojin. Weydii naftaada su'aashan: maxaan u rabaa in aan joojiyo caadadan? Ma waxaa ii soo laabanaya karaamadaydii aan dadka ku dhex lahaa? Ma waxaan noqonayaa nin rag ah oo mas'uul ah? Mar walba oo uu sii geysto, waxaa sii kordhayo aragtidiisa madow oo nolosha ku aadan waayida dhadhanka nolosha, heer uu u gaaro xaalad depression ah, yacni murug weyn ah. Haddii aad dareento in aad caadadan samayn rabto, qaado go'aan ah in aad markaas seexato ama isku day in aad soonto maalmaha Khamiista iyo Isniinta ah. Haddii aadan caadadan hadda iska dayn, ogow in aadan hadhow iska dayn karin, maxaa yeelay jirkaaga ayaa la qabsaday. Xitaa haddii aan noqoto mid xaasle ah, iskama dayn kartid caadadan. Bilow hadda si aadan hadhow ugu dhigtoon joojinteeda. Haddii aad isleedahay nin dhallinyaraa ahay, xaas malihi, markaan xaas yeesho ayaan iska daynayaa, may taasi waa been cad oo aad naftaada u sheegtay. Iskama dayn kartid midaas mudane. Isku day inaad hadda joojiso caadadaas. Sinada. Wiil iyo gabarba midkaad tahay, waxaan kaaga digayaa wiilkayow inaan iska ilaaliso sinada. Waxaan kaaga sheekaynayaa qiso yar oo ku saabsan sinada. Waa maxay sino? Dhibaatada sinada. Qisooyin ku saabsan sinada. Waa maxay sino? Sinadu waa cudur ku dhaca dadka ka soko kalifaayo in ay iskugu galmoodaan galmo xaaraan ah oo aan Alle raali ka ahayn. Dhibaatada sinada. Waxyaabaha imaan doono waxayna u dhacaan sida isagoo arkayay oo kale, taasoo ka mid ah mucjisooyinkiisa Isagoo. Waxyaabihii uu ka hadlay Nebiga Isagoo waxaa ka mid ah: xanuunadan faraha baan ku hayo bani aadamka wakhtiyadan dambe ee aan horay loo arag. Intaas ayay noogu dhan tahay qaybtii koowaad ee buuga. Fadlan muuqaalka like saar, janalkana subscribe garayso. Mahadsanid.